hadda wixii ka dambeeyay saaxiibayaal waxay noo suuragal inaynu isticmaali karno akoonnada aynu ku leenahay aaladaha internetka password la'aan. tusaale haddii aad saaxiibayaal isku daydaan muuqaalkan dabadiisa inaad isticmaashaan akoonnadiina Gmail-ka waxaad awood u yeelan doontaan inaad access u heli kartaan ama isticmaali kartaan akoonnadiina Gmail-ka idinka oo aan gelinin password. waxa saaxiibayaal hadda soo baxday maalmo yar ka hor waqtigan muuqaalkan sameynayo tiknoolajiyad cusub oo bedeli doonta halkii markii hore aynu passwordka isticmaali jirnay in aynu ka maarano passwordka inaynu isticmaalno. waxa saaxiibayaal tiknoolajiyadan iska kaashanaya saddexda company ee inta badan ugu weyn tiknoolajiyada ama IT-ga shirkadda Google, Microsoft iyo Apple. waxayna inoo suulo gelinaysaa tiknoolajiyadan cusub website-yada internetka akoonnada aynu ku leenahay haddii aynu telefoon Android ama iPhone isticmaalayno iyo haddii aynu waliba computer isticmaalayno in aynu website kasta geli karno inagoo aan gelinaynin wax password isla markaana xasuusnaantii passwordkana ka maarmayno in passwordka uu dibadda u baxana sidoo kale ay noqonayso mid mid yareysa in passwordadu dibadda inooga baxaan. haddaba saaxiibayaal tiknoolajiyadan waxa la soo saaray maalmo yar ka hor hadda waxaana muuqaalkan isku leegi doonaa wax kasta oo ku saabsan tiknoolajiyadan oo ay ugu horeyso sida aynu isticmaali doono telefoonada Android iyo iPhone iyo computerka iyo waliba sidoo kale tiknoolajiyadan waxyaabaha ku saabsan ee laga yaabo inaad isweydiiso amaba haddii aad isticmaalayso amaba isku dayday inaad isticmaasho su'aalaha ugu badan ee kaaga iman kara ee aad isweydiin doonto. waxaan ku horeyn doonaa saaxiibayaal sida loo setup gareynayo loo isticmaalayo. waxaanu isticmaali doonaa saaxiibayaal muuqaalka dhexdiisa aaladda Gmail oo aynu rabno akoonnada aynu ku leenahay in aynu adeegsan karno password la'aan. sidoo kale waxaanu eegi doonaa saaxiibayaal aaladaha kale ee internetka ee aynu isticmaalno ama akoonnada ku leenahay in aynu akoonnadooda password la'aan isticmaali karno. wixii kale su'aalaha ee laga yaabo inaad isweydiin kartana qaybta dambe ee muuqaalka aynu iyagana ku wadaagi doonaa. haddaba saaxiibayaal haddii aad telefoon ama computer isticmaalaysaan waxaad ka dhigi kartaa Gmail-kaaga mid aad password la'aan isticmaali karto. haddaba saaxiibayaal waxaad u baahan tihiin boggan hadda aan anigu joogo in aad timaadaan haddii aad telefoon iyo computerka aad rabtaan ba isticmaalaysaan. linkiga boggan saaxiibayaal wuxuu yaalaa Telegram channel-keena marka linkiga waa isticmaali kartaan. haddii kale oo boggan rabtaan inaad timaadaan idinkoo linkiga isticmaalin waxaad samayn kartaan inaad browserka telefoonka ama computerka kugu jira soo furto kadibna aad Gmail-kaaga timaado amaba aad timaado Google-ka kadibna aad doorato calaamadda profile-ka Gmail-kaaga kadibna option-ka ka hooseeya ee ku taala manage your Google account aad doorato. boggan ayaad ku dambeyn doontaa labada qaabkaad soo martaba. markaad boggan timaadaan saaxiibayaal waxaad dooranaysan halkan ay ku taalo security. kadib markaad timaadaan qaybta security hoos baad soo degaysaan waxaad dooranaysan option-ka aynu socono oo ah passcase waa option-kan ama tiknoolajiyada aan rabno inaynu isticmaalno muuqaalka kadibna waad dooranaysan. haddaba boggan markaad doorataan saaxiibayaal haddii akoonnadiina Gmail-ka ay hore uga furan yihiin telefoon Android oo isticmaalaysaan telefoonkaagu isaga ayaa hore isaga diiwaan gelinaya passcase-ka balse ka hor telefoonkaagu passcase-ka iska diiwaan geliye aynu isweydiino waa maxay passcase-ka ama tiknoolajiyada cusub ee muuqaalka ku wadaagaynaa waxay idin ogolaanaysaa saaxiibayaal markaynu gelayno akoonnadeena akoonkeena Gmail-ka haddii telefoonkeena oo passcase-ku ka diiwaan gashan yahay aynu gelayno marka halkii laynu weydiin lahaa passwordka Gmail-keena waxaanu isticmaalaynaa fingerprint-ga telefoonkeena hadduu fingerprint leeyahay telefoonku ama face ID-ga telefoonkeena haddii telefoonkeenu wejigeena aqoonsan karo. taas waxay ku suuro gelinaysaa in aanad passwordka Gmail-kaaga isticmaalin oo dibadda kaaga bixi kara. intaas oo kaliya maaha haddii aad Gmail-kaaga ama akoonkaaga aad ka gelayso telefoon ama computer kale oo aanad lahayn ama aanad hore uga isticmaalin markaad computerka isticmaalayso marka Gmail-ka ciwaankii geliso passwordka halkii lagu weydiin lahaa waxa lagu weydiinayaa telefoonkaagan uu ka furan yahay Gmail-kaagu ama passcase-ku ka diiwaan gashan yahay inaad fingerprint-gaaga ama wejigaaga tusiso si computerkaagu uu kuugu ogolaado Gmail-kaaga inaad isticmaali karto. runtii waxay ka caawinaysaa halkii qalabada cusub markaad gelinayso passwordkaaga aad qori leed passwordkaagu ka bixila in telefoonkaaga aad fingerprint-giisa adigoo computer kale ama telefoon kale ka geliyay Gmail-kaaga aad isticmaasho. waa qaabka uu shaqeynaya passcase aynu iskula soo noqono. haddaba marka horeysa ee aad qaybta passcase-ga soo gasho haddii Gmail-ka uu ka furan yahay telefoon Android waxa lagu weydiin doonaa ama waad arki doontaa Gmail-kaaga oo hore uga diiwaan gashan passcase-ga sida halkan inooga muuqanaysa. markaan passcase-gii doortay
waxa halkan waxay noo soo baxaya bogan haddaad halkan u fiirsato maxaa lagu leeyahay automatically created passkeys Motorola haddaba marka halkan Motorola telefoonka halkan ku qorani Gmail-kan aan soo galay haddaan israado Gmail-kaygan ka gal qalab kale ama computer kale ama telefoon kale marka passwordka la weydiinayo waxa passwordka ah telefoonkayga oo telefoonkayga ayaan fingerprint-iga saaraya haddii se telefoonkaygan uu baaskaygu iiga diiwaan gashan yahay halkan inooga muuqanaya oo Android hadduu telefoonkaagu yahay hore u diiwaan gashan marka aad Gmail-ka ka galayso halkii lagu weydiin lahaa passwordka isla telefoonkaagan asagana waxa lagu weydiinaya fingerprint-iga ama Face ID-ga hadba ka uu isticmaalayo haddaba qaabka weeye qaabka baaskaygu u shaqeynayo wuxuuna kuu suuro gelinayaa passwordkaagu in aanu dibadda kaaga bixin ama in aanad passwordkaaga meelaha aanad ku kalsoonayn markaad joogto aanad isticmaalin ee aad isticmaasho fingerprint-igaaga ama wajigaaga adigoo telefoonkaaga isticmaalaya qalabka kale aad Gmail-kaaga ka galaysana passwordna aan gelinaynin xog kalena aan gelinaynin haddaba qaabka weeye qaabka baaskayga isticmaalayso haddaba haddii aanu telefoonkaagu Android ahayn isagu oo aad rabto inaad ka diiwaan geliso telefoonkaagu iPhone yahay waxaad u baahan tahay telefoonkaaga iPhone-ka isaga inaad bogan timaado baaskay kadibna aad doorato halkan ay ku taalo create a baaskay markaad doorato waxa kuu soo bixi doona bog halkan imika sida aniga bogan computer-ka iga muuqanayo kale idinkana telefoonka iPhone-ka shaashadeeda ka muuqanaya haddii computer aad isticmaalayso computeradu waqtigan muuqaalkan duubayno awood uma laha in loo isticmaalo iyaga password ahaan sida telefoonka balse haddii aad telefoon iPhone isticmaalayso ama Android waxa kuu soo bixi doona u isticmaal telefoonkan baaskay kadibna telefoonkaaga ayaa Gmail-kaaga loogu save gareynaya in uu ahaado password hadhow haddii aad computer ama telefoon kale ka galayso Gmail-kaaga telefoonkaaguna iPhone yahay waxa lagu weydiin doonaa Face ID-ga ama fingerprint-iga telefoonkaaga iPhone-ka si aad u isticmaasho haddaba maadaama imika isla aragnay sida telefoonada Android loogu isticmaalayo yani baaskay adigoo computer isticmaalaya soo kale isla aragnay telefoon iPhone haddaad isticmaalayso oo telefoonka iPhone-ka aad rabto inaad baaskay ka diiwaan geliso qaabka looga diiwaan gelinayo hadda waxaan u gudbi doonaa sidee baa telefoon Android iyo soo kale telefoon iPhone ahba markaad isticmaalayso aad yani password ahaan ugu isticmaali kartaa telefoonkaaga adigoo computer kale ama telefoon kale isticmaalaya oo Gmail-kaaga ka galaya waxa halkan inoo yaala bog kale saaxiibayaal oo hadda aan computer-ka aado marka bogan ayaan doonaynaa inaan nimaadno haddaba halkan sare sida caadiga ahayd waxaad gelinaysaan email-kii aad rabteen in aad gelisaan su'aal kale anu hadda waxaan gelayaa email-kayga halka iga muuqanaya haddaba email-kayga markaan galo u fiirso markaba maxaa la soo saaraya saan password ahaan ugu isticmaal telefoonkayga use your baaskaygaaga isticmaal ciwaankayga email-ka halkan yaala halkan waxa lagu leeyahay isticmaal telefoonkaaga fingerprint-giisa ama Face ID-giisa ama password-giisa khasa maaha telefoonka fingerprint-iga iyo Face ID-ga inaad isticmaasho soo kale telefoonka password-ka aad ku gasho waad isticmaali kartaa balse fingerprint-iga iyo Face ID-ga ka fiican haddii telefoonkaagu awood u leeyahay marka continue baad oranaysaa continue markaad tidhaahdaan waxa halkan idin soo bixi doona saaxiibayaal optionadan waxa weeye waxa lagu tusi doonaa telefoonada iyo soo kale qalabada uu akoonkagaasi uga yani qalabada baaskayga kuwa haddaba marka waxaad dooranaysaa halkan ay ku taalo use a different phone or tablet optionka hoose oo isticmaal telefoon ama computer kadibna markaad doorato waxaad imaan doontaa telefoonkaaga yani hadduu Android iyo iPhone yahay kii aad rabtaba kii ku diiwaan gashan marka baaskayga kuwa kamarada ayaa furan doontaa kadibna waxa aad ku beegi doontaa yani koodka shaashada kaaga muuqanaya markaad koodka ku beegto waxa qaybta sare idinka soo muuqan doono optionka ay ku taala baaskay waa telefoonada iPhone telefoonada Androidna option lamid ah kaaga soo muuqanaya halkaas oo ay ku taalo isagana ku soo saaraya allow oo macnaheedu yahay uu ogolow in yani uu galo akoonkaaga Google account-iga يعني كمبيوتر كاس ama qalabka kale in laga galo balse imka telefoonka iPhone-ka isticmaalayo waxa soo baxay bogan oo macnaheedu yahay akoonkaaga Gmail-ka baaskaygiisu wuxuu ku save gareysay telefoonkaaga amiyad rabtaa qalabka kale inuu access gareeyo continue haddaan iraado shaashadayda ama telefoonkayga hadda wuxuu isticmaalaya Face ID-gayga si uu ugu ogolaado akoonkaygaas inuu computer-ku access gareeyo sida idin ka muuqanaysa shaashada marka qaabkaas ayuu access gareynaya sidaas la mid ah telefoonkaaga wada Android yahay markaad ku beegto waxa aad ku beegaysaa kamarada telefoonkaaga Android adigoo qaabkan raacaya kadibna allow buu ku soo saaraya waad access gareynaysaa su'aasha kale isweydiin kartaa xogeeye haddii aan telefoonkaygan
amaba computerka inkastoo horey ka jawaabay aad rabto inaad gmailkaaga ka gasho sidee baad ku access garaynaysaa ayaga telefoonkaagan baaskeyga ahaan u diiwaan gashan haddii aad rabto inaad ka gasho gmailkaaga markaad passwordka lagu weydiinayo already lagumaba weydiinayo haddii telefoonkaagu fingerprint leeyahayna fingerprintga isticmaal baa lagu odhan haddii telefoonkaagu wejigaaga isticmaali karayna wejigaagu isticmaalay haddii aanu telefoonkaagu labadaa mid lahayna passwordka telefoonkaaga ayaa lagu odhanaya geli si aad u access garayso amaba aad u isticmaasho gmailkaaga haddii yani aad qalab kale u access garaynaysana kamarada ayaa lagugu odhanaya ku beeg si qalabkaa kale aad ugu isticmaasho haddaba optionadani amaba aaladan yani baaskaygani muxuu yahay si websiteyo kale ma loo isticmaali karaa aaladan baaskay amaba aan idhaahday teknolojiyadan cusub ee baaskay waxaa ka qayb qaadanaya kambaniyada ugu waaweyn inta badan information technology-ga ama IT-ga haddaba isla waqtigan muuqaalka duubaya maalmo yar ka hor kambaniga u horeeyay ee ku dhawaaqay shirkadda Google weeye ee soo dhexgelisay systemkeeda Gmail balse maalmaha soo socda toddobaadyada soo socda ama bilaha soo socda hadba waqtigan muuqaalkan daawanayso waxay u badan tahay in ay aaladaha kalena sida yani Microsoft ama shirkadda Apple oo kale iyo sidoo kale Facebook iyo in ayagana lagu isticmaali doono aaladan baaskay oo adigoo aan ama teknolojiyadan baaskay oo adigoo aan passwordka gelinin aad telefoonkaaga u isticmaali karto fingerprintgiisa ama telefoonkaaga qaybihiisa kala duwan password ahaan haddii qalab kale ka isticmaalaysana aad password ahaan u isticmaali karayso balse waqtigan muuqaalka duubayo Gmail ay ku kooban tahay aaladan baaskay balse waxaa khasaba aaladaha kalena way soo kordhin doonaan waayo iyaga ayaaba ka qayb qaadanaya aaladan baaskay oo maaha wax shirkadda Google oo kaliyaati ay la timi su'aasha kale ee la isweydiin karo ayaa iyaduna ah haddii telefoonkaagu uu yahay passwordkaad ku gelaysaa akoonnadaada internetka haddii telefoonkaagu gacantaada ka baxo miyay micnaheedu tahay in akoonnadaada kale gacantaada ka baxaan su'aasha jawaabteedu waa haa iyo maya iyadoo ku xidhan haddii telefoonkaaga qof kale passwordkiisa garanayo yes akoonkaaga waa la geli karaa haddii se telefoonkaaga aan qof kale passwordkiisa garanaynin xitaa haddii telefoonkaaga furan gacanta lagu dhigo oo qof kale qaato ma geli karo akoonnadaada sababtoo ah qofkaasi fingerprintigaaga ama fartaada ma yeelan karo wejigaagana ma isticmaali karo passwordka telefoonkaagana ma garan karo haddaba iyadoo ku xidhan qof walba baahidiisa in aad password la-aan isticmaasho akoonnadaadu way ku anfici kartaa haddii aad tahay tusaale kale qof isticmaala dhowr akoon dhowr Gmail laga yaabo qaar ka mid ah in yani security-gooda uu rabo inay aad u adkaadaan qaar ka mid ah inuu inta badan access gareeyo aaladan waad isticmaali kartaa personally waqtigan muuqaalkan duubaya anigu aaladan akoonnada Gmail-ka ayaan isticmaalo qaar badan oo kamid ah waliba kuwa ugu muhiimsan ah waan u sadaab gareeyay anigoo u isticmaalaya for security reasons meelo fara badan oo aanad ku kalsoonayn marka aad joogto uma baahnid in aad geliso passwordkaaga amaba passwordkaaga inaad qorto especially haddii aad isticmaalayso qalab aanad lahayn oo 90% ay u badantay inaanad ku kalsoonaanaynin yani qalabkaas 100% markaad akoonnadaada ku access garaynayso haddaba taasi saaxiib yaal waxay ahayd aaladaha cusub amaba teknolojiyada cusub ee la yiraahdo baaskay waxaan rajeynayaa wax laalo wixii ku saabsan in ay la wadaagay haday tahay setup-keedii markaad isticmaali karto in loo isticmaali karo aaladaha kale aynu internetka ku isticmaalno ee well-known-ka iyo sidoo kale su'aalo ku saabsan oo kooban oo ah sida aaladan loogu isticmaalayo haddaba haddii saaxiib yaal muuqaalkeena wax ka faa'iideen وطبعا ugu yaraan aan rajeynayo muuqaalkeena like saara si muuqaalkan dad badan u gaaro aynaynu aragno muuqaalkan inuu noqday muuqaal wax laga faa'iiday haddii aanad muuqaalkeenan waxba ka faa'iideen oo aanan rajeynaynin waad dislike garan kartaan saaxiibayaal muuqaalka inta muuqaalkan ka xigaan ku kulmi doono aniga iyo idinka waxaan idin rajeynayaa saaxiibayaal khayr wassalaamu calaykum